warbixin lagu daabacay wargeyska la yiraahdo TR Arabiga ee ka soo baxa wadanka Turkiga ayaa waxa lagu sheegay in dawladda Turkiga ay la wareegayso hoggaanka iyo tababarada ciidamada danbe ee markaasay dawladda Mareykanka ay horay gacanta ugu haysay militariga dalka Turkiga ayaa waxa ay markaasay sheegayaan in ay u diyaarsan yihiin in ay buuxiyaan booskii ay markaasay banaysay dawladda wadanka Mareykanka waxa kale oo dawladda Turkiga markaasay ay sheegtay in ay la wareegi difaaca iyo sidoo kale duqeymaha lala beegsanayo argagixisada sidoo kale waxa ay markaas dawladda Turkiga ay sheegayaan in diyaaradahooda droneska si gaar ah kuwa F-16 ay Soomaaliya ku soo daabuli doonaan si ay markaas dagaalo adag ula galaan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daesh oo Soomaaliya ka dagaalama hadalka ka soo yeeray dawladda Turkiga ayaa waxa uu imaanaya iyadoo dhawaan Mareykanku uu sheegay in inta badan ciidamadiisii joogay Soomaaliya uu la baxayo waxaana qaybtii ugu horeysay Soomaaliya laga saaray maalinkii shalay sida ay war ka soo baxay Africom lagu sheegay warka ka soo baxay dawladda Mareykanka ee si gaar ah ciidamadeeda jooga Afrika ee magacooda marka la soo gaabiyo loo yaqaano Africom ayaa waxa ay ku sheegeen in ciidamadooda gabi ahaanba aan Soomaaliya laga qaadi doonin laakiin qaar kamid la qaadi doono ama intooda badan Turkigu waxa uu kamid yahay dalalka sida weyn u caawinaya dawladda Soomaaliya si gaar ah ka qayb qaadanaya dhisidda ciidamada qaranka waxa kale oo dawladda Turkiga ay tahay ama ay ku leedahay Soomaaliya saldhigga ugu weyn oo Turkiga uu ku leeyahay qaarada Afrika haddii dhab ay noqoto warka ka soo baxay dawladda Turkiga isla markaana howlgalka Turkiga ee Soomaaliya uu isku bedelo mid markaas duqeymo iyo weeraro geysanaya waxa uu noqonayaa mid kale oo Soomaaliya ku soo biiray dawladda Mareykanka oo in badan caawinaysay si gaar ah ciidamada danamo oo howlgallo gaar ah ka fuliya meelaha inta badan ay joogaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxa Mareykanka uu sheegay in dhawaantan uu ka baxayo Soomaaliya dawladda Turkiguna hadda waxa ay u muuqataa inay buuxinayso kaalintii ay banaysay dawladda wadanka Mareykanka lama oga in dawladda Soomaaliya ay si dhab ah u codsatay in Turkiga ay booskaasi buuxiyaan iyo in kale dawladda Turkiguna ma aanay soo hadal qaadin in dawladda Soomaaliya ka codsatay Turkiga waxa uu kamid yahay saaxiibada Soomaaliya ugu muhiimsan isaga oo dhaqaale iyo military ba ugu deeqa dawladda Soomaaliya oo hadda dhanka diblomaasiyadda markii laga hadlayo sanadihii ugu dambeeyay si weyn u soo kabanaysay ayaa haddana dhinaca kale waxa barbar socda dhisidda ciidamada qalabka sida inkastoo inta badan dagaalamayaasha Al-Shabaab weeraro xoog leh ay ku soo qaadaan ciidamada dawladda iyo saaxiibadooda dhinaca kale dawladda wadanka Uganda ayaa dhawaantan si weyn waxa ay sheegtay in ay ugu walacsan tahay militariga Mareykanka ee ka baxaya Soomaaliya maadaama sida dawladda Uganda oo ciidamadeedu ay qaar ka mid ah AMISOM sheegtay in xogihii muhiimka ah ee laga helayay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay meeshu ka bixi doonaan haddii Mareykanka ay baxaan waxa kale oo Africom iyaguna sidoo kale dhawaantan ay sheegeen in inkastoo intooda badan Soomaaliya ciidamadii ka joogay Mareykanka uu qaadanayo haddana waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin caawinta militariga Soomaaliya si gaar ah ciidamada danam oo beegsanaya goobaha muhiimka ah ee lagu tuhumayo dagaalamayaasha Al-Shabaab